السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوداء أصحابتنا غالية كحرن channel كانوا مصابرين أصحابتي غالية ما أنتوا عارف أنا السمية ما شاء الله همبرجر روت همبرجر برامات أنا السمية أصحابي مرك أصحابتنا غالية ما حرم حافلة أنا لسه عندهم تان إلى يا دماتك سوداء هذا إن شاء الله أصحابتي غالية هذا بلاونا هذا إلى إدمه halkan waxaan ku haystaa rootigii aan ka sameyn lahaa hamburgerka halkan waxaan ku haystaa hilibkan hadda rabaa inaan kusoo rido bacda kasoo rido hadii ilaahay asxaab u jeedaan halkan waxaan ku haystaa basal iyo toon basal aan si yar usoo jaray iyo toon weeye asxaabta qaaliga xogaa isku walaaqaya hadii ilaahay idmo asxaabi hadda waxaan ku darayaa waxaan rabaa inaan ku daro xawaajiyadii iyo waxyaabaha aan ku carfin lahaa hadda waxaan ku daraa hal qaado oo barbarooniga shiidan ama paprika baan ku daray cusbo yar baan ku daray waxaan hadda kaloo ku darayaa hadii ilaahay idmo xawaaji yar hal qaado xawaaji aan ku daray barbarooni waxaan ku daray maraqyada shiidan baan hal qaado ku daray maraqyada oo laga sameeyo qudaarta oo shiidan hadda asxaab waxaan rabaa inaan si fiican baan rabaa inaan soo dhex geliyo waa ujeedaan gacantaan la galay waa isku xasheeyaas marka maasha Allah asxaabta qaaliga waa soo dhex geliyo waa ujeedaan hilibka saas ama taqaanaa isaga dhan waa isku soo xashay marka hadda in yar baan soo goostay saasaan gacanta rabaa inaan kusoo balballaariyo hadii ilaahay idmo in yar oo qiyaas oo gacanta calaash leeg baan kusoo dhigayaa maasha Allah asxaabta qaaliga ka bugasho wanaagsan waxaan rabaa asxaabi sus oo kala daadan baa gacantaas ugu ballaarinaysaa in yar oo qiyaas ah oo calaash leeg baa ka dhigaysaa maasha Allah hadda waxaan rabaa saas kusoo waday hadii ilaahay idmo saxankaas kusoo safaya hadii rabbi idmo maasha Allah ka bugasho wanaagsan asxaabtana qaaliga asxaab sharafta leh waxaan leenahay noo soo dhawaada gacmo furan noogu soo dhawaada maasha Allah channelka walaashina musaabiriin asxaabta qaaliga ku soo dhawaada ugu horeyn waxaan leenahay asxaabta nagu cusub maasha Allah subscribe noo saara channelka noo share gareeya asxaabaysaana la socotaan kambalka furta maasha Allah asxaabtana qaaliga waa ujeedaan saasaan kusoo dhameynay hilibka halkaan kusoo safay haddana waxaan bilaabaynaa haddana maasha Allah waxyaabihii aan ka samayn lahayn dhan baan tusanaa hadii ilaahay idmo aan dhex gelin lahaa hamburgerka halkaan waxaan ku haystaa salarkii asxaabay waxaan kaloo halkaan ku haystaa qudaartii barbaroonigii basashii iyo waxaa weeye iyo yaanyadii halkaan waxaan ku haystaa baradho aan soo shiilay jibsi camal ah maasha Allah asxaabka mayonnaise baa igu jira halkaan waxaan ku haystaa yaanyo aan soo dalacay 3 xabo aan soo dalacay weeye marka asxaab haddaan bilaabayna dabka saarana hadii rabbi idmo maasha Allah asxaabta qaaliga u jeedaan birtan dabka soo saaray wixii oo saliid aan kusoo shubay iyo saliid aan badnayn kusoo shubay asxaabi haddana hilibkii waan rabaa inaan saaro hadii ilaahay idmo hilibku macnaha saliid badan kuma sameynayno sababtoo waxaan rabnaa inaan qalajino uuna bislaado marka saliid badan ma isticmaalayo in yar baan kusoo shubay maasha Allah saasaan kusoo wadana hadii ilaahay idmo asxaabtana qaaliga ka bugasho wanaagsan asxaab u jeedaan yar oo saliid u baahan yahay haddaad doontana saliid iska din kartaa oo si udaar u baahan tahay si fiican inuu kugu qalalo saliidda waxaan diidayaa inuu kala daataan ka baqayaa ama meesha uu ku dhago marka yar oo saliid aan kusoo shubayaa saasaan kusoo dhameynaa hadii ilaahay idmo asxaabta qaaliga maasha Allah bugasho wanaagsan asxaabta diyaar weeye intuu saaran yahay meesha waxaan sarsaaranaa cheese waan sarsaaranaa cheese-kan in la bisleeyo waxaas uma baahna marka wax yar baan inuu ku dhago hadda baan ka qaadaya hadii ilaahay idmo wax yar buu saaran yahay hadda baan rabaa inaan ka qaado marka cheese u baahan in la bisleeyo waxaas ma ahana saas uu diyaar ku yahay marka asxaabi wax saas waxaan rabaa inuu isqabsado hilibkii waxaan rabaa cheese in isku dhagaan bas baan ka rabaa hadii ilaahay idmo marka ujeedada saas hadda rabaa inaan wax qaado asxaabtana qaaliga
waxaan filayaa inaad ka faa'iidi doontaan masha allah masha allah asxaabta qaaliga soo dhawaada saasaan asxaabi kusoo wadana haddii rabbi idmo masha allah asxaabta qaaliga hadda xabadaas ayay hartay jiiskan macnaha saasuu diyaar ku yahay wax karis wax maaragtay seel waxaas uma baahna sidiisa xataa waa lagu dhexgeliyaa hadda waxaan rabaa inuu hilibkii asaga rabaa inay isku dhagaan intaas kaliya aan baan ka rabaa marka hadda waa ujeedaan hadda waan ka qaaday waa ujeedaan asxaab halkaas kusoo diyaariyey masha allah asxaabta qaaliga hadda waxaan rabnaa inaan bilowno inaan hambeegarkii aan diyaarino marka asxaabi hadda waxaan soo qaatay hambeegarkii hal xabo yaanyadii baan soo qaatay waa ujeedaan hal qaadaan hadda marinayaa waa ujeedaan asxaabta qaaliga maasha allah yaanyada waa yaan soo dalacay weeye asxaabi waxaan kaloo rabaa inaan ku xijiyo hal qaado oo mayonayskii ah baan ku darayaa mayonayskii xataa waa ka dhigan kartaa yaanya kaliya xataa waa ka dhigan kartaa khasama labadaba in la isku daro saasaan kusoo wadanaa haddii ilaahay idmo hadda waxaan saaraa hal xabo barbarooni ah barbarooniga waan jarjaray hal xabo yaanya iyo basashii aan soo jaray iyadana intaa markaan saarnay asxaabi waxaan rabnaa in kaloo aan saarno salarkii aan soo jarnay isagana hal xabo salara saaraysaa maasha allah hal xabo salar qiyaasoo la eg meesha si fiican baa la rabaa inuu u muuqdo si loo arkay inuu yahay waxaa la sameynayaa hambeegar hadda waxaan soo saaray waxa weeye hilibkii iyo jiiskii oon isku soo dhejinayay baan hadda saaray waa ujeedaan asxaabi si isugu soo bixin maasha allah qurux waxaan kaloo hadda kor kasii saaray waa waxa weeyaan baradhadii jibsiga waa ujeedaan saasaan u diyaarinay maasha allah qurux maasha allah hal xabo hambeegar oo maasha allah diyaarsan saasaan kusoo wadan asxaabtana qaaliga ah maasha allah asxaabtana qaaliga waa ujeedaan si u soo baxay saa ujeedaan quruxda badan indhihiina idin macalin asxaabe waa ujeedaan waa saas kusoo baxay maasha allah quruxdaas leh waan usoo diyaarinay wax walba u dhammaystiran yihiin asxaabta qaaliga waxaan filayaa inaad ka faa'iideen hambeegarkii maanta aan sameynay saas kusoo baxay maasha allah waxaan idinka tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh